السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan naga daawanaysaan waa maxamed aamin. fadlan hadday tahay markii kugu horreysay soo booqato waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkan aad furto si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada aan soo gelino, like saarto videogaad hadda daawanaysa, siina share garayso adoo mahadsan. falcelin nadiifa oo xanafi ka dheehan tahayna aad qaybta hoose ee commentiga aad noogu soo reebto. mahadsanidin. haddaba xogta aan maanta idin hayno ama aan la wadaagayna ayaa ah fanaanada caanka ah ee ah fanaaninta lagu jecel yahay fanka Soomaalida, ka mid ah fanaaninta ugu sumcadda badan oo sumcadda iyo qadarinta ku leh fanka dhanka hablaha ama dumarka ee Farxi Kabayre ayaa waayidii ugu dambeeyay lagu eedeyn jiray inay tahay shakhsi Itoobiyaan ah isla markaana aan u dhalanin wadanka Soomaaliya, maadaama dadkaasi qiimeeya fanka ay ku sheegeen in gabadhan ay leedahay cod ku duwan fanaaninta kale ee dumarka ah ee heesa sida Farxiyo Fiska iyo Yurub Kenya iyo fanaaninta kale far badan, King Jaamac iyo fanaanin kale oo badan oo kamid ah fanaaninta dumarka ah cod ku duwan ama ka qaab duwan ay leedahay. ayadoona dhowr mar la weydiiyay oo la su'aalay ah in ay leedahay cod ka duwan fanaanintaasna waxay ku jawaabtay inaysan lahayn cod ka gooni ah codka Soomaalida isku hayso, balse ay been tahay in ay dhalasho ahaan kasoo jeedo ama qoys ahaan ay kasoo jeedo Itoobiya, ayadoona sheegtay in qoyskeedu ku dhaqan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya. Farxiyo Kabayre oo mar laga wareystay arrintaasi ayaa waxa ay ku jawaabtay inay ararkaasi ban yihiin. hadaladeedina waxaa ka mid ahaa sida tan: waa dad badan qaba oo aaminsan in maaragtay codkaygu uu yahay ama uusan Soomaali ahayn oo qof Itoobiyaan aan ahay. qaarna waxay aaminsan yihiin inaan maaragtay mixerkan la sheegayo iyo waxyaabaha computerka lagu habeeyo inuu yahay, laakiin waxaan uga jaahil bixin karaa anigii oo live u heesay hadday dhageystaan waa shaki baxayaan u maleeyaa waa dhageysan doonaan u maleeyaa kulley waa ogaan doonaane eesta la yiraahdo casho uurka qalbiga oo badanaa u maleeyaa inay Itoobiyaan tahay. taasay badanaa dhaan Itoobiyaan waaye. marka ayadana hadda ka hor aan live uga qaaday raadiyo, marka dib ma lahan waana la isu imaanaya waxaan stage-ka lagu kala baxaa. haddaba maxay kula tahay adiga dhankaaga in fanaanadan maxaa ku qiimeyn lahayd farintaada ama falcelintaada qaybta hoose ee commentiga noogu soo reeb? ma dhici kartaa in fanaanada Farxiyo Kabayre ay kasoo jeedo dhankaasi Itoobiya, mise ma dhici kartaa hadalladaasi inay been yihiin ama ay been abuur u badan yihiin? hadalladaasi noogu soo reeb qaybta commentiga. mahadsanid.